magaalada Garowe caasimada dawladda Puntland waxay ka mid tahay magaalooyinka sida xawliga uga soconaya xagga horumarka dhismayaasha iyo goobaha ganacsiga. horumarku wuxuu qayb ka yahay amaanka wadanka. Waxa magaalada Garowe laga furay hotel loogu magacdaray 13 dhalinyarada ahaa ee SWL. furitaanka hotelka waxa ka soo qayb galay Islaan Ciise Islaan Maxamed, gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Nugaal, xogayaha dawladda hoose degmada Garowe, mulkiilaha hotelka iyo marti sharaf lagu casuumay. mulkiilaha hotelka Cismaan Maxamuud Xaaji ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay dadweynaha ka soo qayb galay furitaanka hotelka, isagoo sheegay in hotelkani ka mid noqonayo hoteelada casriga ah ee caasimada Puntland laga furayo. gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Bariir ayaa ku amaanay una mahad celiyay mulkiilayaasha hotelkan. waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa mulkiilaha hotelkan oo ku soo saacidiyay gobolka Nugaal degmada Garowe hotel qurux badan oo wanaagsan oo loo baahnaa. waxaan filayaa magacaan hoteelo badan baa la dhisay inay arki waayeen ilaa isaga uga celinayay sababta magac qaaliya weeye SWL hotel kale la yiraahdo kuba yaalo gobolka isaga nasiib u helay maalgelinta uu ku sameeyay gobolkana waa uga mahad celinaynaa. inta kale oo waxaysatana waxaan leenahay intaad meelo kale iyo dibadda kula warwareegaysaan xoolihiina ilaahay dalkiina hayna tuso. xogayaha dawladda hoose Cabdiqafaar Cabdiraxmaan Sheekh ayaa ku hadlayay afka dawladda hoose ayaa soo dhaweeyay isla markaana sheegay inuu dakhli uga soo xoranayo dawladda hoose. hotelkan waxa uu abuurayaa dhaqaale maxalli ah shaqo abuur dawladuna waxay ka helaysaa dakhli marka inaynu wadankeena maal gashano oo hoteelo badan oo casri ah iyo meherado badan oo casri sidaan kale laga furo waa arrin farxad leh mar walbana qof kasto oo muwaadina uu ku farxayo. Islaan Ciise Islaan Maxamed xariga ka jiray hotelka ayaa sheegay in amniga oo laga shaqeeyo inuu keeni karo horumar xagga ganacsiga iyo bilicda magaalada Garowe. bulshada inteeda kale oo Ilaah baa awood leh awoodana war wax adduunkan ah aayatiin leh aakhirana aayatiin leh oo adigana wax ku anfacaya ehelka ama islaamkana wax anfacayana qof kasto awoodo waa lagaaga baahan yahay. si kasto hadda uu ismaano isu yiraahdo waxa kan adiga adiga yuu ku dhaafay waa ku fasbanaanaya mid badan baafac ka helaya kuna sayya habeen seexaya laga hooyaya. Cabdiqani Axmed Maxamed Cabdiqani Fantastic Colson TV Garowe.